madaxweynaha dalka adduunka ugu quwadda weyn ee Mareykanka ayaa wuxuu wajahayaa colaado baahay oo kaga imaanaya ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gudaha Mareykanka iyo daafaha caalamkaba. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation. kadib doorashadii la doortay madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu cunaqabatayn baaxad weyn ku soo rogay dalal gaaraya ilaa 5 xabo kale ay mid tahay Soomaaliya isagoo sheegay dadka ka yimaada dalalkaasi inaysan soo gaari karin. maalmaha ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo la hadlayay dad badan oo ka mid ah taageerayaashiisa ayaa waxa uu si baan u dhaleeciyay Soomaalida degan magaalada Minneapolis isagoo ku tilmaamay dad aan u wanaagsanayn danaha Mareykanka iyo dadka Mareykankaba. Here in Minnesota, you've seen firsthand the problems caused with faulty refugee vetting, with large numbers of Somali refugees coming into your state without your knowledge, without your support or approval. si kastaba ha ahaatee gudaha Mareykanka ayaa waxaa ka soo baxay sanadkii ugu horeysay ee Soomaaliya taasoo noqotay Ilhaan Cumar waxay noqotay leebkii ugu horeeyay ee Donald Trump kaga dhaca wadnaha hase ahaatee kaligeed kuma aysan ahaanin dagaal badan oo warbaahinta dhexdeeda kadib Ilhaan Cumar waxay noqotay qofka ugu hadalhaynta badan warbaahinta gudaha Mareykanka haddana aan ahayn mid la loodin karo. Ilhaan Cumar waxay si cad meel u saartay awood kasta oo isticmaalay madaxweynaha Mareykanka iyadoo gaarsiisay heer uu yiraahdo waa inay is-casishaa balse iyadoo jiray waa inuu asagu is-casilaa hortay. dhibaatada soo wajahaysa madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump intaas kuma ekaanin way ka sii ballaaratay kadib markii maalmaha ka mid ah uu socdaal ku tagay wadanka Ingiriiska magaaladiisa UK. booqashadii safarkaasi uu ku tagay madaxweynaha Mareykanka kadib waxaa soo baxay Soomaali kale oo madaxweynaha Mareykanka ku soo rogay cunaqabatayn baaxad weyn. waa Soomaali lagu magacaabo Maajid waa maayar ka mid ah maayarada magaalooyinka dalka Ingiriiska kaasi oo leh awood uu ku kontroolo magaaladiisa cidda soo galaysa iyo cidda ka baxaysa. toddobaadyo olole doorasho aad u kulul ka socday Yurub ayaa inta badan siyaasiyiintu waxay qaateen nasiino kadib markii doorashadii la soo gabagabeeyay iyagoo sugaya inay helaan natiijada balse Maajid oo 29 jir qaxooti Soomaali ah wuxuu sii waday kulamada uu bulshada la yeelanayo wuxuuna ugu dambeyn ku guuleystay xubin inuu ka noqdo baarlamaanka midowga Yurub. kahor xubinnimada midowga Yurub Maajid waxa uu ahaa duqa magaalada Sheffield oo ka mid ah magaalooyinka lagu jecel yahay wadankaas Ingiriiska. Maajid ayaa markii ugu horeysay magaalada Sheffield yimid isagoo oo da'diisu ahay 5 sano jir. waxa uu xilligan la socday hooyadiisa iyo 5 walaalihiisa waxayna si qaxootinimo ah ku galeen dalkaasi Britain. Maajid iyo qoyskiisa ayaa ka hor inta aysan UK iman waxay muddo 6 bilood ah ku jireen xero qaxooti oo ku taala dalka Ethiopia. wiilka nasiibka badan ee magaca Soomaalida kor u qaadi doono ayaa wuxuu ka soo jeedaa deegaanka hoostaga magaalada Burco ee waqooyiga Soomaaliya. Maajid ayaa horaantii sanadkii 2018 ku guuleystay inuu noqdo maayarka magaalada Sheffield ee wadanka UK waa halka uu kaga aarsan doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Maajid ayaa Trump ka mamnuucay Sheffield inuu cagta soo dhigo isagoo adeegsanaya awoodda maayarnimo iyo codka golaha deegaanka magaaladaasi. maayar Maajid ayaa dad badan ka yaabiyay kadib markii magaaladiisa uu duqa ka yahay ee Sheffield uu ka mamnuucay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu soo booqday xilli uu safar ku joogo Britain. codsadayna Trump inuu magaaladaasi gaaro. Maajid ayaa ku dhawaaqay go'aanka mar uu shir gudoomiye golaha deegaanka ee Sheffield taasi oo walaaltinimo loogu muujinayo dadka reer Mexico waa sida uu sheegay. ujeedadu sida ma ahayn waa sida reer UK uu sheegay. ujeedadu waxay ahayd inuu ka aarsado Donald Trump oo dagaal ku bilaabay Soomaalida meel kasta ay dunida ka joogeen kuna tilmaamay dad horor ah. waxa uu xilligan Mr. Trump ku tilmaamay nin nacas ah isla markaana laga mamnuucay magaalada qiimaha badan ee Sheffield balse waxa xilliga ka soo horjeestay qaar ka mid ah golaha deegaanka magaalada Sheffield oo sheegay inuu san lahayn awood sharci ah oo Trump kaga mamnuuci karo booqashada magaaladiisa taasoo ugu dambeyn fashilantay. Trumpna uu booqan waayay magaaladaasi kadib go'aankii adkaa uu ka qaatay maayarka magaalada. Maajid ayaa noqday Soomaaligii labaad ee wadnaha xanuujiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo horaantii doorashadiisa ku bilaabay dagaal ka dhan ah Soomaalida waxayna u muuqataa Donald Trump in culaysyo badan ay Soomaalidu saartay. si kastaba ha ahaatee Soomaalida ayaa waxay tahay dad firfircooni iyo aragti dheer leh meel walba ay tagaan ka soo dhex muuqdo leena awood hogaamineed ee bulshooyinka caalamka kala duwan.
hooyaday haddii ayan dabayl orin awood male naflaydoye markaan guurka hooyaday ayfka uga soo baxay anigoona baabara